tinta ardaydan oo tiradoodu gaarayso 40 ruux ayaa la sheegay inay ku guuleysteen ardaydaasi imtixaan hore ay u qaaday wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare taas oo dhalisay inay helaan deeq waxbarasho dalkan Yemen. wasiirka hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda kumeel gaarka ee Soomaaliya Professor Ibrahim Xasan Cadow oo isagoo hadal gaaban ka jeeday munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waalidiinta dhashay ardaydaasi safiirka dalka Yemen u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay wasiirku baahida loo qabo in la helo deeq waxbarasho oo ku filan ama sare loo qaadayo tacliinta ardayda Soomaaliyeed. wasaaradda intii yarada hadda ay jirtay dhowr wax shahaado qaldan oo si walaga soo iibsaday waa dhamaatay ardayda ay ugu guuleystaan laga saaray taas waa la isku waafaqay aniga wasiirka tacliinta waxa yani waxbarashada iyo barbaarinta waxaan isku waafaqnay oo ku wada shaqeynaa in loo helo ardaygii wax yaqaan imtixaan laga qaado sanooyin tiro badan oo soo maray madaarista shahaado marka qaldan way ardayda maanta meesha joogto waxa ku sidaas wax ku helay waa u sheegay waxaan ku maartay sida la ku cadaalad qal تعليم يعني ما في أفكار يعني على المسؤول كثير كل سياسة أو مسارة أو زمالي العكس ترد الله لو تختار يا ساق ولا وش وحاليا البكارة في السوق هذه جاعد وكتب يعني بغلال بكان أيوة ضيعي يعني هو حل منه مركز أرتيجا إن شاء الله أنا جانا ولا شغال دونا جامعة هير اللي يلدونا وسافر دونا وحنويد دونا ترانسكريبت أم كشف درجات سمستر كستو ولا سعنا إن شاء الله. سيدو كله. safiirka u fadhiya dalka Yemen oo isaguna hadal gaaban halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay in arintani ay tahay markaasi mid loo baahnaa xilligan isagoo ardaydaasina kula dardaalmay in ay ka faa'iideystaan deeqdaasi waxbarasho ay siisay dalkaasi Yemen. munaasabadan waxay ka la socotaa munaasabada wadankeena baatay ka socda wadanka Yemen ee dabaasiga ayaa gudaha ka soo wareegtay wadanka. هذه الكوكبة من الشباب هم أمل المستقبل